bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. nabadgelyo saaxiibayaal, kusoo dhawaada wararka caalamka iyo kuwa soomaalida kuwooda ugu waaweyn ee garmaal t v d heesana waxaa ka mid a saraakiil ay ciidan ku lug lahay iskudayga afgambiya xafiiska ra-iisul wasaare rooble oo baxsaday beesha caalamka oo fariin kulal u dirtay madaxda ku shirsan magaalada muqdisho. shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta ka duwan sidii hore. madaxweynihii hore hirshabelle cali cabdulaahi cusuble oo fariin u diray rooble ka hore qorshaha lagu wajahayo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan. puntland ayaa xirtay odayaasha gawaarida takaasida iyo booliisku oo faahfaahiyay sababta loo xiray dagaal la xamaray ciidamada jubbaland iyo al-shabaab oo ka dhacay gobolka jubbada hoose. intaasi waa qaar ka mid a qodobada warka garmaal t v aad ku daawo doontaan. iminkan uu diyaar garoob ayagoo faahfaahsan. dagaal la xamaray ciidamada jubbaland iyo al-shabaab oo ka dhacay gobolka jubbada hoose. dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa wuxuu ka dhacay saldhigga ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose. dagaalka ayaa wuxuu yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamada jubbaland ee deegaanka baraka ee duleedka kismaayo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in badan saacado socday kaasoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. goobjoogayaal ayaa waxay ku waramayaan inay maqlayeen dhawaaq taas isku adeegsanaya labada dhinac, islamarkaana uu jiro khasaare ka dhashay hayeeshee sheegeen inay si rasmi u xaqiijiyeen dadka ku waxyeeloobay dagaalkaasi. xaalada deegaanka baraka ee gobolka jubbada hoose ayaa degan, waxaana deegaankaasu ka mid yahay goobaha laga ilaaliyo magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland. puntland ayaa xirtay odayaasha gawaarida takaasida iyo booliiska oo faahfaahiyay sababta loo xiray ciidamo ka tirsan booliiska dowlad goboleedka puntland ayaa maanta waxay magaalada boosaaso ku xidheen qaar ka mid a odayaasha tagsiyada kadib markii lagu eedeeyey inay warar been abuura faafiyeen, islamarkaana si loogu barakaco magaalada darawalada la xidhay ayaa gaaraya ilaa 3 kuwaasoo lagu eedeeyey inay hormuud ka ahaayeen qalqalgelinta amniga iyo bulshada magaalada boosaaso si ay dadka ugu barakacaan kadibna lacag uga sameeyaan. taliyaha qaybta booliiska gobolka bari sareeyagaas cabdiqaadir jaamac dire oo shir jireed warbaahinta ugu qabtay magaalada boosaaso ayaa sheegay dadka ay ku leeyihiin wararka been abuur ee lagu qalqalgelinayo amniga magaalada boosaaso laguna barakacinayo shacabka. waxaana si cad u sheegay in qaar ka mid a dadka tigsilayaasha ay dadka u barakiciyeen si lacag uga helaan, wuxuuna ugu baaqay in arrintaasi ku waantoobaan isagoo ciidamada amniga falay in xaqiijiyaan amniga magaalada boosaaso. markaana madaxweynihii hore hirshabelle cali cabdulaahi cusuble ayaa fariin adag u diray ra-iisul wasaare rooble ka hore qorshaha lagu wajahayo magaalada beledweyne. madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble ayaa ka hadlay xaalada kacsanaanta ee ka jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha dalka. cali cusuble ayaa marka hore ka digay qorshaha socda ee ku aadan in beledweyne laga wareejiyo doorashada golaha shacabka oo haatan ka taagan dooda adag. sidoo kale wuxuu fariin toos u diray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ugu baaqay inuusan kasii darin xaalada taagan gaar ahaan tabashada reer hiiraan. madaxweynihii hore hirshabelle ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dooda socota ee ah in doorashada lagu soo koobo hal deegaan doorasho, isagoo ka hor yimid qodobkaasi. madaxweynihii hore hirshabelle cali cabdulaahi cusuble ayaa yidhi dib u socod dooni mayno, hal deegaan doorasho dooni mayno ayuu mar kale qoraalkiisa ku yidhi cali cusuble madaxweynihii hore maamulka hirshabelle. maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday askari dishay dad shacaba. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxay xukun ku riday 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda kuwaasoo 2 bishii Diseembar ee sanadkii dhamaaday 2021 dil ka geystay isgooska dabka ee magaalada muqdisho wiliga gobol walaalaha. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuuti ayaa ku dhawaaqay in dable xooga cabdiwaayeel macalin aadan lagu xukumay dil toogasho, halka dable dayax nuur cabdi aadan lagu riday xukun 1 sano ah oo u dhiganta dembiga uu galay. goobta maxkamadda ay ku sugnaayeen ehelada Zakariya Maxamuud Xasan iyo Soode Maxamuud Xasan iyo labada askari ayaa lagu soo bandhigay baaritaan la xiriirta sidoo falku u dhacay. waxaana la sheegay in rasaasta ay ku gooriyoodeen Zakariya Soode riday dable xooga dalka cabdiwaayeel macalin aadan, halka dable dayax uu riday 2 xabadood balse aysan cidna wax ku noqon. dacwadda kiiska dilka labada walaal ayaa muddo soo socotay iyadoo ugu dambeyn cadaaladda ay heleen kadib markii ehelada marxuumiintii ay wacad ku mareen inaysan marnaba aqbali doonin meel lagu tuuro kiiskooda oo aan waxba laga soo qaadin, haddii kalena ay gacantooda ku doonayaan sharciga. shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta ka duwan sidii hore. shirka golaha wadatashiga qaran oo laga hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa maanta galay maalintiisa 3aad. kulanka oo ay ka qaybgalayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Rooble, madaxweynayaasha galmudug, hirshabelle, koonfur galbeed, puntland, jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka banaadir.
waxaana lagu wadaa in maanta shirka kusoo biiraan ururada bulshada rayidka iyo weliba ururada haweenka. Shirka ayaa waxaa shalay ku biiray oo ka qayb galay wakiilo ka socda beesha caalamka iyo midowga musharaxiinta. Wararka qaar ayaa sheegaya in laga yaabo in gelinka dambe maantay lasoo gabagabeeyay islamarkaana soo saaro warmurtiyeed ku saabsan shirkii muddada 3 maalmood socday. beesha caalamka ayaa fariin kula u dirtay madaxda ku shirsan magaalada Muqdisho. beesha caalamka ayaa ugu baaqday golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya inay xaqiijiyaan in doorashada dalka socota ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dhawaan la soo gabagabeeyo. baaqan ayaa yimid kadib markii shalay diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleed dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Si kastaba ha ahaatee, waxaa maalintii saddexaad Muqdisho ka socda shirka golaha wadatashiga qaran kaasoo looga hadlayo sida loo gudbi lahaa ismaalwaaga siyaasadeed ee doorashada. saraakiil iyo ciidan ku lug lahaa isku dagii afgambi xafiiska ra'iisul wasaare Roble oo baxsaday. sida xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada ayaa waxay sheegeen in magaalada Muqdisho ka baxsadeen ciidankii saraakiisha ku lugto lahaa afgambiga lagu wareegi lahaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. xubnaha baxsaday ayaa gaaraya ilaa 6 ruux oo ka tirsanaa ciidamada Gorgor waxaana ku laabteen degmada Garbahaare ee gobolka Gado iyagoo gaday hubkii dowladda ku wareejisay. saraakiishii ciidamada baxsada ayaa cabsi xoogan soo wajahday kadib markii la magacaabay guddi adag oo baaritaan ku sameynaya isla markaana ka shaqeynaya dadkii ku lugto lahaa afgambigii dhicisooday. xogta kalena Helen ayaa sheegaya in ciidamo kale iyo saraakiil qorsheynayna baxaan la hor istaagay ilaa baaris laga sameynayo. lama oga warbixinta ay soo saari doonaan guddiga ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay inay warbixin ka soo saaraan ciddii ku lugto lahayd afgambigii dhicisooday. wadaan halkaasna kusoo gabagabeynaya warkii Garmaal TV aad ka daawanayseen. nabadgelyo.